cutubiyadii ugu horeeyay ee loogu talagalay xoreynta ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ayaa ka degay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. ciidankan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka ambabaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxayna gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug iyagoo u sii gudbi doona deegaano iyo degmooyin ay qayb ka yihiin ceelbuur iyo ceelgaras. magaalooyinkan iyo qaar kale oo ay ku wajahan yihiin ciidanka ka ambabaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa muddo dheer waxaa maamulaya Al-Shabaab, waxa uuna howlgalkani qayb ka yahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. ciidanka ka ambabaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo howlgalka xoreynta ceelgaras iyo ceelbuur deegaanada hoos yimaada waxaa hogaaminaya taliye Maxamed Xaashi Canshuur oo ah taliyaha deegaanka Daarusalaam iyo taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. waxaa cutubiyadani horkacaya xildhibaanada matala ee maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo xildhibaan Yuusuf Geele Ugaas.